بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشركينا مانتا waxaan ka bilaabaynaa phenols waxaan noo socday chapterkii labaad ee organic chemistry-ga oo ku saabsanaa alcohols, phenols and ethers. Alcoholska maalin dhaweeda soo qaadanay, maanta waxaan maraynaa ama waxaan ka bilaabaynaa phenols. What are phenols? Phenols maxaa la dhahaa? Phenols are compounds waa isku dhisyo that have iska leh ama waxay leeyihiin oo lagu gartaa hydroxyl group, OH group. Hydroxyl means OH group bounded directly, kaas oo si toosa ugu dhegan to benzene. Structure-ka loo yaqaano benzene hore aan u soo aragnay markii aan joognay chapter 1. benzene waa naqaanaa, marka waa OH group si toosa ugu dhegan benzene ayaa la yiraahdaa phenol. Phenols can also be defined. Phenolska xataa waxaa loo qeexi karaa as hydroxyl derivative, inay yihiin kuwa ka soo farcamay ama kuwa ka yimid benzene. waa kuwa ka soo farcamay benzene inay yihiin. General formula phenolkana wuxuu noo noqonayaa AROH. AR waxay u taagan tahay aryl group or benzene. Benzene ama aryl group waa isku mid. Examples aan qaadanaynaa, some examples oo ku saabsan phenolka. Okay, structure-kan waa benzene uu ku dhegan yahay OH group, waxaa loo yaqaanaa phenol. Structure-kan waa phenolkii laakiin waa raacsan oo ku dhegan bromo. kanoo kaleetood waxaa loo magacaabayaa inaad nambarisid. nambarka halkee ka bilaabaysaa? Always meesha OH groupku ku dhegan yahay ka bilaabaysaa. Number 1, number 2, 3. 1 iyo 3 haddii lagu dhegan yahay maxaa loo yaqaanaa? horaan usoo barana meta, waxaa loo soo gaabiyaa M smaller. marka M bromo phenol, M ama meta bromo phenol. Ortho iyo meta iyo bara chapterkii hore ee chapter 1kii hydrocarbonskan kusoo baranay. Okay, structure-kan saddexaad CH3 methyl iyo OH group ayaa ku dhegan. intaan waa phenol, laakiin CH3 markii ay raacdo waxaa loo yaqaanaa orthocresol, sababtoo ah OH groupku meeshuu ku dhegan yahay wuxuu qaadanaa always nambarka koowaad kana nambarka labaad. 1 iyo 2 waxaa loo yaqaanaa O ama ortho, marka wuxuu noqonayaa O-cresol ama orthocresol. Example-ka ugu horeeya, name the following structure. magacaaw qaab dhismeedka soo socda. qaab dhismeedkaana nala siiyey, waxaa nala ka rabaa ubag namekiisa inaan qorno. Okay, sidee loo sameynaa? sharci la raacaa jira. sharcigaas laba qodob waaye. marka ugu horeeya nambari. nambarkana waxaa ka bilowdaa OH groupka positionka uu ku dhegan yahay. number 1C. number 1. Okay, meeshaan laba joyce taalla. marka ma waxaan aadayaa dhankan mise waxaan aadayaa dhankan? adigoo u jeeda meel lagu dhegan yahay, meel ebera ma aadi kartid, number ma siin kartid. kuwan waxaa la rabaa inay yeeshaan lowest number. tusaale, dhankaanaan soo aaday, fiiri, gees kasta numberaad siinaysaa. labadan meelood oo lagu dhegan yahay nambaraday kala qaateen 5 iyo 6. laba meel kuwii eberka ah, 3 meeloo eberna maxay qaateen? nambaro yaryar. qaabkan oo kaleetood lama ogola. adigoo u jeeda meel lagu dhegan yahay, meel ebera, number ma siin kartid. Okay, numberska marka waxaa sax ah in dhankan loo soo socdo oo loo socdo dhanka saacad wareeg.
marka waxaan u soconaynaa clockwise 2 3 4 5 6 gees kastana nambarka waa ku qoraysaa saa u jeedid labada meeloo haddaa ay 5 iyo 6 ku dheganaa hadda waxay haystaan lowest number 2 iyo 3 okay aan magacaawno marka laba meelood haddii ay ku dhegan yihiin horaan u soo baranay laba substituent oo isku eg waxaa la isticmaalayaa ereyga dhaay marka waxay noqonaya numberskan inaan qorno oon dhahno 2,3 dhaay magacooda waa nitro kadibna intaan waxaa loo yaqaanaa phenol structurekan magaciisa oo kooban wuxuu noo noqonayaa 2,3 di means 2 di nitrophenol structureka magaciisa oo kaamila sidaas ayuu noo noqonayaa waxaan gelaynaa exampleka labaad ayaan qoraynaa okay example-keena labaad name the following structure magacaaw structureka soo socda okay qaabkaan u magacaabayno waa isu sheegnay markuu horeysa waa la nambarinayaa nambarka koowaadna always waxaa iskale os groupka boosku ku dhegan yahay dhankaan meel ebera ka xigta dhankaana meel lagu dhegan yahay ka xigta adigoo arkaya meel lagu dhegan yahay meel eber ah number ma siin kartid marka waxaan u soconaynaa clockwise saacad wareeg inta 2 noqonee inta 3 inta 4 5 6 magaca markaa qoraysid waxaad u qoraysaa alphabetical order sida ay u kala horeeyaan magacyadooda inta waxaa ku dhegan methyl ma ugu horeysa inta waa cloro c ugu horeysa intana waa nitro na ugu horeysa marka waxaan ku bilaabaynaa c kadib m kadib n okay 4 cloro 2 methyl 5 nitro kadibna phenol marka haddii aan isku akrino haddaan isku akrino magacii wuxuu noo noqonayaa 4 cloro 2 methyl 5 nitro phenol exampleka saddexaad ayaan ku xejinaynaa
حبة لك بس حبة أقدم بس حبة أقدم بس example كان saddexaad wuxuu noo noqonayaa structure kan waxa lagu yiri name the following structure okay ugu horeyn oo ay groupka positionka uu ku dhagan yahay aan siino number 1 su'aashu waxay ka taagan tahay marka intana waa meel banaan intana waa meel banaan laakiin structure kana ku xiga ka kale meesha labaad kana structure kana ku xiga dhamaan aan fiirino magacyada ay ka bilaabmaan bromo waxay ka bilaabataa b kan waa ethyl wuxuu ka bilowdaa e kana waa chloro wuxuu ka bilowdaa c marka c iyo e yaa soo horeeya waa soo horeysa c meeshaan laba dhig marka counter clockwise lid saacad wareega u soo wareegaynaa 2 3 4 5 6 nameku aan qoraynaa alphabetically waxaan u horeeya bromo intay ku dhagan tahay 4 bromo kadib labadan waxaa soo horeeya chloro 3 chloro kadib 5 ethyl ugu dambeyn phenol magacii oo dhammaystiran example-ka saddexaad wuxuu noo noqonayaa 4 bromo 3 chloro 5 ethyl phenol shirkeennii maanta oo ku saabsanaa phenoliska intaas ayuu noogu egyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu